الشيخ شاكر واستقيمات وإيمان ونصر ويبقى ولو وحنا مقالة يومي مالها وصدر في كامل الرجاء الصالحين عليك عن قوة لي خاصة دين كان معي فريسة دستور كان معي قفوا الله وحنا أقول من هاي الرجاء إنا لما يستمروا اسمه دولة كجيل وهو لما يستمروا هذا من صلاة مركب هو لما يستمروا وهي فرصة إنسان لما يسترجع تجارك كل كتاب خوارج وهي فرصة إنسان خوارج تلو كيدي سكانها خوارج وهي فرصة إنسان وهي مكان إنسان ماذا ويلا شغال وهي فرصة إنسان شعب والدين وحرمات إنسان هدي يعني هذا سأعرف فوق البعضان ومهم أدام إليكم عدي بوشك في النساء بقيني من دور أسور الوساء يعرف الوساء تغطي بكم عليه بوشك بكوي قلبي مطلق بياه كل نوعي يفتي بياه مالي قيمة سيكون درمان ماشي كل waxaan muqadarajowey oo aan Soomaaliyeed ka u ragay u muuqata cadowga ugu weyn waddanka fadda ku leeyahay waddanka gudihiisa waa khawaarijta waana in la xoreeyaa waana in kulligeed ku midownaa haddii ilaahay laba shay oo kale waxaan jeclaan lahaa inaan xasuusiyo oo dhibka ugu badan oo haystaa dalka مدوى مصطمات وبيشيك هو مصطمات وحالتان هو مصطمات وشغلوا بلي وقصوت على ما خلوه يسوى مصطمات وعدالة أمل هو مصطمات وإحل هو مصطمات وحوى المرمات الحنة ودين تنبيو آلي وطلعي ومصطمات وأنا كل يوم أدام مقالة مقالة إيمان وكل جينا مصر وكسور ذلك سنة إلهي أرجع الله صومالي وهاي قبيالة دي أيام كان أول ربطة دين أنا قبيالة دي أيام تقول إلهي إفراي أمر أيوة أيوة بعدين إنك هاي قبيالة وحب خرية sida culimadu noo sheegtana sidaas ma aha sida quraankeena ku qoranna quraanka waxa ku qoran waj'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila lita'aarafu in la isku garto kaliya Soomaa qabyaaladii ayaa waxay noqotay aasaaskii nolosha waa xumaan ka daran Soomaaliya culimada waa inaan dadka laga daalin loogu yeeraa marka والله شيغا dariiq khalada inay nagu wado tii dalka dumisay inay tahay 30 sano oo soo dhaafnay oo dibka ku jirnay tii noo keentay inay tahay 30 ka horeeyay qaybtiisa ugu dambeysana burburka iyadoo inay mas'uul ka ahayd inta inoo dhiman waan idin soo dhaweynay sheekana waa u mahad celinaynaa dawladnimada ku fara adayga qolo iyo qabiil يا كوحير مالوا لو غاري واي انت ادين دمن شعب دلنيري وايل كان عصده يا علماء كلنا اسراع هدي ادو سمربتين سو دweeye ان شاء الله دولدنimada ilaahay dibka naga bixiyo ilaahay umada Soomaaliyeed qalbigooda soo dhaweey ilaahay midnimada ha nagu wado ilaahay qabyaalada ha naga ilaaliyo
ilaahay qof walba oo qarannimada ka soo horjeeda ha naga qabto ilaahayow qof walba oo qarankeena duminaya naga qabo ilaahow rabbiyow qof walba oo qarankeena duminaya naga qabo ilaahay ummadda Soomaaliyeed ha u nimceeyo ilaahow dhibka ha ka qaado ilaahow cadowga gudaha iyo cadowga dibadda naga ilaali ilaahay shacabka Dhuusamareeb ha barakeeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.